halkan xisbiga kulmiye iyo xukuumaddu waxay u yimaadeen in xal loo helo oo mudnaanta doorashada la siiyo waxaanu doorbidaynaa inay doorashada baarlamaanka iyo dowladaha hoose isku sanaynoo qabsoomaan haddii aad qoonsanteen waxaanu qabanayna taas baan u soconnaa haddii idin aad tidhaahdeen doorashadaasaanu anaguna u soconnaa sida isoo gaadhay anuna taas baanu doonayna maantana waxaanu jecelahay in badan baynu ku wareegeysanay inaynu doorashada awoodda saaro marka kooxdaas waa tii kulmiye saasaanu heshiis ku nahay halka waxay aniga ii dheer xeerarka dalka u yaalla kulmiye ma wada saaree anigu isaanay in alaaliyo anoo dhex waa xisbiyada oo dhan anna waxaan kan doonayaa inaan ka caddeeyo marka ay tahay awoodda dowladda iyo ilaalinta xeerarka inaan dhex kahay xisbiyada si aynu shaqada wada qabanno markaynu boolatiigayno xisbi loo eegayo koofiyadda xisbiga waa halkeeda laakiin inaanan taa ku gudbinin xeerarka qaranka inaanan ku jirin xisbiyada kale waan yaqiisanahay ilaahay hortiina waan ku dadaalaya inaan taa dhex ka ahaado saaxiibadina waxaan doonayaa inay ila dareemaan taa oo haddii aynu sharciga ku muranno aanan u xaglinayn dan xisbiga kulmiya aan leeyahay malaha qaranka yaan la dhalaan beritaa la noolaan saaduma hawsha la wadaya war xeerka aan ilaalin maayaan wixii aad igu qoonsataa intaa waxa weeye mawduuca inoo yaallaa waxaanu maanta doonaynaa inaynu si detail u dhammayno inu ka heshiino ra'yigaa fariin ahaan igu soo gaadhay inaad qaadateen oo inaa inagu ka wada hadal oo ahaa ra'yigii ka soo onkamay qolada odayaashii hore waxay idhaahdeen iyo la isku daray iyo kuwii dambe qoladii akaadimiyada ee aqoonyahanka ra'yigaa ay soo beeska u lahaadeena ah guddidii hore oon looga maarmayn waaye arag farsamo iyo labada xisbiya mucaaridkao maanta iyaga aaminsan iyo guddida sharciga ku dhisan oo aan waaye arag badan lahayn idinkuna a ka beediidantihiin inay dhibaatada taataan filaya sharciyan markaanu eegna waxaynu u baahan nahay si ay sharcigu u jiro inoo horgasho in labadii la iswaafajo la socodsiiyo oo kuwii aad rabteenna la keeno waayo arnimadii aaminadda ku qabteen kuwii sharcigana aan la burburin karin yaa tana labadaa aynu iswaafajino oo aynu doorashada qabsano ra'yigaanu u fadhina halkan waa kaa kii baynu gudagelaynaa waa isu dulqaadanaynaa waa isriixriixanaynaa wixii danta qarankuna ku fadhi doorashaan kulayna waa gaadhaynaa dee doodan aan ku horjee annagu intaasaan meesha la nimi markaa waxaan leeyahay midun baan saxayaa oo guddoomiyaha u cid wadadii aanu qaadnay aanu anooskaran sharcina way ahayd saxna way ahayd ummadduna way soo dhaweysay ciidina iskumay taabsanaysa haddii waddada xurata sharci baa la raacaa sharciguna waxaa war nimankii xisbiyadiis afgaran waaye haddaba dee xisbiyadaha la furo ila dadku doorasho la-aan maaye hadday xisbiyadu heshiiyaan baarlamaanka amadid ma geyn karo waana taynu ku wada fadhino marka halkana inaynu dee wixii badnaa haddii sharci la eegayo oon sharciga aanan dul qaadanayna dee maba inaa wada fadhina ila shala adiga cadgalaa khaandhale weeyaanoo dalku khiyaameeyey haddana waa inaan ku soo dhaweynaye dee dulqaadka dhan kala eeg marka sharciga waynu ku wadaalaynaa waxaa dee dulqaadkuna waa kaanu kula jooga ka daawo moobilkaaga gacanta wararka iyo barnaamijyada bulsha t v haddaba taabo play storeka moobilkaaga kadibna ku qor xarfaha bulsha t v taabo install si aad u soo download garayso kadibna fur abkan bulsha t v